xarunta dawlad goboleedka galmudug kadib in ka badan 10 sano oo ay ku jirtay colaad khilaaf siyaasadeed iyo kala qaybsanaan maamul waxa ay martigelisay horaantii 2020 doorashada xubnaha baarlamaan goboleedka iyo madaxtooyada galmudug inkasta oo ay suurtagal tahay inaan doorashada labaad ee dawlad goboleedku ay dhinaca hufnaanta iyo tartanka uga liidatay doorashooyinkii galmudug ku dhisantay ee ka dhacay cadaado bishii Julaay 2015 haddana waxa ka soo baxay xilli madaxeedka labaad iyo dhismaha hay'adaha dawlad goboleedka galmudug kuwaas oo ay ayaamaha soo aadan muujin doonaan tayada iyo waxtarkooda 2007 maamulka dhuusamareeb waxa isku hayay maxkamadihii midoobay iyo xarakada al-shabaab horaantii 2008na waxa ay gashay gacanta xarakada al-shabaab ha yeeshee kacdoonkii dariiqada suufiyada oo uu hogaaminayo ururkii ahlu sunna wal jamaaca ayaa sababay in dhuusamareebi ka baxdo ka mid ahaanshaha degmooyinka gobolka ee ku hoos jiray maamulka al-shabaab kacdoonkaasi muddo 4 sano ah oo uu socday waxa uu horseeday hardan iyo dagaal daba dheeraaday oo ay ku dhinteen labada dhinacba dad aaqirka ka mid ah guud ahaan tirada muwaadiniinta dagaalada sokeeye uga maqan dadka Soomaaliyeed 2012 ayaa hardankaasi ku soo dhamaaday in maamulka dhuusamareeb iyo degmooyinka gobolka qaarkood uu galo gacanta ururka ahlu sunna wal jamaaca hogaamiyayaashii ahlu sunna wal jamaaca iyo xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed islama fahmin mana suuro gelin soo jeedintii Agostina Mahiga ergeygii xogayaha guud ee qaramada midoobay taas oo ahayd in ahlu sunna wal jamaaca ka mid noqoto xukuumadda isla markaana iyada oo ka mid ah dawladda ay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ha yeeshee xubno uu ka mid ahaa allaha u naxariistay Cabdishakuur Sheekh Xasan wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo ay wada dhasheen Macallin Maxamuud Sheekh Xasan iyo siyaasiyiin taageeray dagaalkaas kana faa'iideystay magaca ahlu sunna wal jamaaca ayaa laga yaabaa inay ku metelayeen dawladda dhexe balse taasi marna kama dhignayn in ahlu sunna wal jamaaca ay ka mid noqotay dawladdii ku-meelgaarka ahayd ee Shariif Sheekh Axmed dad badan oo ka mid ahaa dhexdhexaadiyayaashii ahlu sunna wal jamaaca iyo xukuumaddii madaxweyne Shariif waxa ay qabaan inay arrinta uga dartay aragtida loo tiiriyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ee ahayd inaysan suurtagal ahayn taageeridda jabhad hubaysan oo u dan leh inay iskeed u ahaato awood jirta iyada oo lala dagaalamaya jabhado kale oo hubaysan oo malaha uu ula jeeday al-shabaab iyo xisbul islaam oo ay hogaaminayeen xilligaas rag ay aad isugu dhowaayeen madaxweyne Shariif Sheekh Axmed yeelkeeda ay ku kala tageen aragtida iyo habka loo marayo xukunka waddanka sidaas daraaddeed hogaamiyihii awoodda iyo saamaynta badan ku lahaa ahlu sunna wal jamaaca Macallin Maxamuud Sheekh Xasan marna kama quusan inuu fursad siyaasadeed ka sameeyo dagaalkii hubaysnaa ee ahlu sunna wal jamaaca la gashay xarakada al-shabaab waxaana loo arkaa inuu yahay wadaadka keli ah ee rumaysan haddana aan ku dhaqmin falsafadda qabta in dagaalku uusan ahayn yoolka iyo ujeeddada balse uu yahay jidka lagu sameeyo fursadaha siyaasadda arrinta cajiibka ah ayaa ahayd in ahlu sunna wal jamaaca ay noqotay jabhadda keli ah ee ka mid noqotay saxiixayaasha qorshihii tubta nabadda Soomaaliya ha yeeshee fursaddaasi siima jirin sabab la xiriirtay ahlu sunna wal jamaaca oo si walba u khilaafsanayd aragtida siyaasadeed ee leh siyaasaddu waa wixii suurtagal ah isla markaana aan u diyaarsanayn la jaanqaadidda isbeddelka siyaasadda waddanka sidaas awgeed haddii jabhaddii raasgambooni oo dadka falanqeeya kana faallooda kooxaha ka dagaalamaya xilligaas Soomaaliya ay u arkaan inay dhaqan ahaan iyo aragti ahaanba ku dhoweyd al-shabaab ay aakhirkii iyada oo taageero ka helaysa Kenya qabsatay xukunka jubbooyinka markii la dhisay dawlad goboleedka Jubbalandna ay gacanta ku dhigtay waaxyaha muhiimka ah ee xukunka sida ciidanka iyo dhaqaalaha suurtagal ma tahay in sababta fashilka siyaasadeed ee 2020 ku dhacay ururkii ahlu sunna wal jamaaca ay ahayd taageero iyo aragti la'aan taagnayd muddadii ay jireen fursadaha siyaasadeed Sebtembar 2012 muddaxilaadkii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa dhammaaday waxaana yimid xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh dhuusamareeb waxa booqday ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon balse booqashadaasi waxba kama bedelin xaalka kadibna xubno ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad ayaa isku dayay inay ahlu sunna wal jamaaca ku dhiirigeliyaan la shaqaynta xukuumadda balse natiijadii soo baxday ma muujin wax horumar ah 2013 waxaa geeriyooday hogaamiyihii fulinta ee ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow
geeridaasina waxa ay sii murjisay xaalka iyo xidhiidhka xukuumadda iyo ururkii ahlusunna waljamaaca dad badan oo xilligaas joogay gobolka ama ka mid ahaa xukuumaddii ra'iisul wasaare saacid waxa ay qabaan in kala qaybsanaan la qarin jiray oo ka dhex taagnayd ahlusunna waljamaaca ay sababtay in aan horumar muuqda la samayn caqabadda ugu weyn ee hor istaagtay horumar laga sameeya dhinaca isu soo dhowaanshaha xukuumaddii saacid iyo ahlusunna waljamaaca waxa ay ahayd codsiga malaayiin dollar oo magdhow ah oo loo badinayay inuu ka yimid dhinaca madaxda sare ee ahlusunna waljamaaca muran u dhexeeya madaxweyne xasan shiikh iyo ra'iisul wasaare shirdoon ayaa diseembar waxa uu ku soo dhammaaday in golaha shacabku kalsoonida kala noqdo ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon tallaabadaasina waxa ay hakisay wadahadalkii bilowga ahaa ee xukuumaddu la furtay ahlusunna waljamaaca tallaabadii xigtayna waxa ay ahayd iskudaygii xukuumadda ee ahaa in xalka ahlusunna waljamaaca lagu tijaabiyo awood sidaas awgeed allaha u naxariistee sarreeyagaas maxamed rooble jimcaale iyo xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka socday xukuumadda ayaa booqday gobolka labadaba waxaa ka hor timid caqabaddii xidhiidhxumada u badnayd ee ka dhex taagnayd xukuumadda iyo ahlusunna waljamaaca waana sababta horseedday in degmada guraceel uu ka dhaco dagaal ay ku dhinteen dhowr iyo 10 qof febraayo sida ay sheegeen rag ka mid ahaa golaha dhexe ee ahlusunna waljamaaca dabayaaqadii iyo horraantii hoggaanka ahlusunna waljamaaca waxa uu isku qabtay qaabka loola tacaalayo loogana qaybgelayo qabanqaabada iyo dhismaha maamulka galmudug oo xilligaas ka bilowday dhuusamareeb oo ay ahlusunna waljamaaca maamusho isqabashadaasi waxa ay horseedday khilaaf iyo gacan ka hadal sababay in garab ka mid a ahlusunna waljamaaca oo mar dambe loo aqoonsaday sufa uu dagaal ku qabsado guraceel kadibna ciidan kooban oo joogay dhuusamareeb ayaa garabkaasi ka eriyey magaalada sidaas daraaddeed xukuumaddii madaxweyne xasan shiikh oo baryahaas buuq fara badan uga furnaa dhuusamareeb iyo baydhaba waxa ay go'aansatay in qabanqaabada iyo dhismaha galmudug loo wareejiyo cadaado islamarkaana ay cadaada noqoto caasimad kumeel gaar ah inta xal kale looga helayo arrinta ahlusunna waljamaaca tallaabadaas iyo go'aankaas xukuumaddu waxa ay in yar muujiyeen jahawareerkii siyaasadeed ee ka dhex jiray ururka sebteembar waxaa dhammaaday muddaxileedka xukuumaddii madaxweyne xasan shiikh waxaana febraayo yimid xukuumadda nabad iyo nolol siyaasiyiin badan oo muddo sugaya inay magaca ahlusunna waljamaaca ku matelaan xukuumadda waxa ay la ahayd inay heli karaan fursad ha yeeshee xeerka aan dhignayn balse dhaqangalka ah ee 4.5 ayaa hor istaagay in xukuumadda dhexe kuraas looga helo habaan ahayn 4.5 madaxda ahlusunna waljamaaca oo dhuusamareeb ka dhisatay maamulkii dowlad goboleedka gobollada dhexe waxa ay dareentay inay ku dhacday gef siyaasadeed oo ay halis tahay ka soo kabashadiisu kaas oo ahaa in xubno sare oo ka mid ahaa ahlusunna waljamaaca intii aan khilaafku dhicin ay ka mid noqdeen dowlad goboleedka galmudug islamarkaana aan garabkoodu tala iyo tusaale ku lahayn galmudug intaasna waxa dheeraa inaanay wax xidhiidh iyo wada shaqayn ah la lahayn dowladda dhexe taas oo soo dedejin kartay in loo arko jabhad hubaysan oo aan oggolayn wadahadal iyo awood qaybsi islamarkaana halis ku ah yabyabka dowladnimada soomaaliya sidaas awgeed macallin maxamuud sheekh xasan waxa uu oggolaaday inuu wadahadal feejigan la furo madaxweyne xaaf kaas oo uu arkaya inuu wax la wadaagi karo taasina waa sababta horseedda heshiiskii jabuuti oo nofeembar ahlusunna waljamaaca ay ku heshay xil aan ku jirin qaab dhismeedka dowlad goboleedyada xilka madaxa xukuumaddu waxa uu ka dhignaa kala qaybinta awoodda maamul ee madaxweynaha si ahlusunna waljamaaca uga mid noqoto geedisocodka xaluhelidda khilaafka la haray galmudug heshiiskii jabuuti ee dhex maray galmudug iyo ahlusunna waljamaaca oo ka koobnaa dhowr iyo 10 qodob waxyaabaha siyaasad ahaan laga macaashay waxaa ka mid ahaa in maamulku dego kuna shaqeeyo dhuusamareeb iyo in ahlusunna waljamaaca ka mid noqoto saamilayda siyaasadda galmudug kadib dhammaadka muddadii gaarsiinta ahayd ee xilli madaxeedkii madaxweyne xaaf bishii juun dhuusamareeb waxaa tegay ra'iisul wasaare xasan cali khayre ha yeeshee wadahadalladii dhex maray xukuumadda dhexe iyo ahlusunna waljamaaca marna ma samayn natiijo wanaagsan taas oo ka dhigan
in ahlusunna waljamaaca oo loo haysto inay qabatay qayb ka mid ah shaqada uu ciidanka amisom u joogo waddanka ay la xaajoon weysay 3 xukuumadood oo mid walba qaabkeeda u gaarka ah isugu dayday xalowhelidda arrinta ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan oo u muuqday inuu yahay ninka ugu furfuran ahlusunna waljamaaca balse aan lahayn go'aanka kama dambaysta ah ayaa hor kacay wada hadallo bilihii juun iyo julaay muujiye horumar ha yeeshee waxa ay arrintu dhabaqday markii xukuumaddu dhaqan gelisay qayb ka mid ah heshiis hoosaadkii dhex maray iyada iyo ahlusunna waljamaaca qodobadaas waxaa ka mid ahaa in nabadgelyada dhuusamareeb u gacan gasho xukuumadda dhexe si ay isugu timaaddo ergada beelaha wadaaga dowlad goboleedka galmudug waxa ay arrintu cirka isku sii shareertay markii ay dhammaatay muddaxilaadkii dhammaystirka ahayd ee madaxweyne xaaf ayna xukuumadda dhexe samaysay faragelin loo arkayay xal si loo qabto doorasho goboleedka baarlamaanka iyo madaxtooyada galmudug hoggaankii ahlusunna waljamaaca isaga oo indhihiisa gaarka ah ku qiimaynaya kaalintiisa dowlad goboleedka galmudug waxa uu ku dhegay aragtidiisii ahayd in ahlusunna waljamaaca sii ahaato awood hubaysan oo saamaynteeda siyaasadeed iyo awooddeeda ciidanba leh balse waxa aysan xusuusan in udubdhaxaadka khilaafkii kala dhexeeyey xukuumadihii hore uu ahaa rabitaanka ahlusunna waljamaaca ee ah inay sii ahaato awood ciidan oo iskeed u jirta sida ay sheegeen xubno ka mida xildhibaannadii dhinaca ahlusunna waljamaaca ka soo galay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waxaa ku dhegay macallin maxamuud sheekh xasan oo ku dooday in haddii awoodda ciidan ay ka baxdo gacanta ahlusunna waljamaaca ay ka dhigan tahay in saamayntii siyaasadeed ee soo taagnayd 12 sano ay iyaduna meesha ka bixi doonto waxa ay arrintu sii murugtay markii ahlusunna waljamaaca isku dayday hirgelinta aragtida calwinta jawiga wadahadalka iyo siyaasadda kadibna uu sheekh maxamed shaakir cali xasan ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha galmudug janawari 2020 aragtidaasna waxaa laga soo minguuriyey doorashooyinkii jubbaland oo agoosto 2019 ka dhacay kismaayo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka mid ahaa madaxweynayaashii badnaa ee ka dhashay doorashooyinkaas balse madaxda ahlusunna waljamaaca waxa aysanba qorshaha ku darsan faraqa u dhexeeya kismaayo iyo dhuusamareeb si gaar ah sheekh shaakir waxa uu hilmaamay ugu yaraan inuu 6 bil ka hor ku dhawaaqidda madaxweynenimadiisa u wareejiyey awooddiisa ciidan isla markaana dawladda mushaar siisa qayb ka mida ciidankii u wareejiyey sidaas oo kalena ay xukuumaddu dhowr diyaaradood oo ciidan ah u daabushay dhuusamareeb tallaabooyinkaas oo dhammaantood farriimaha adeegsiga awoodda ciidanka u diray ururkii ahlusunna waljamaaca waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare gogashii galmudug cusub lagu dhisin lahaa waxay taallaa caasimadda galmudug waxaan leenahay oo aan hortaada ka caddaynahayaa caasimadda galmudug si ay isugu yimaadaan bulshada qaybaheeda kala gedisan galmudug waxaa diyaar ay u tahay in dowladda federaalka soomaaliya hay-adaheeda amniga dhammaan ay ka howlgalaan 4 maalin kadib sheegashadii sheekh shaakir ee madaxweynaha galmudug febraayo 2020 baarlamaan goboleedka galmudug waxa uu qabtay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana tartanka doorashada ka baxay inta badan musharaxiin loo haystay in ka qaybgalkooda tartanka uu xiiso iyo baratan adag u yeeli doono doorashada sidaas awgeed axmed cabdi kaariye wasiiru dawlihii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda dhexe oo loo arkayey inuu yahay musharaxa xukuumadda ayaa noqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dad badan waxa ay u arkaan in kasta oo uu keligiis tartamay kuna guulaystay doorasho caynkaas ah haddana inuu u socdo dhinaca fiican tusaalayaasha muujiyey taasna waxaa ka mid ah sida uu u qaabilay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka kuwaas oo ay u muuqatay in fursadda u furan ay tahay inay saaxiib siyaasadeed ku yeeshaan galmudug xildhibaannadaas qudhooda ayaa muujiyey walwalka ka haystay in laga guulaystay marka la joogo galmudug saaxiibadii deeshahan madaxweyne axmed cabdi kaari oo ka soo dhex baxo nabad iyo nololna
waxaan qabnaa inay kalsooni qabaan ninkaan ratigiisu dadku waa wada rara karaa duudkiisa dadku waa wada qaadaa marka ayaantaan haddii agtanada looga jeedjeeda ninkaan asagaa dadkiisa iyo dowladdiisa isku wada karee waxaa laydinka rabaa kalsooni inaa ku qabtiin ayadan oo qoladanada mucaaradka oo meelaha taagtaaganaa laga didin waxaana rajaynaynaa nabadii nolol ruuxeeda inay ka barato madaxweyne axmed cabdi kaari sida bisad iyo jiir jeebka loogu wada hay kara ayagoo iscunayn iyo sida ay u danaynayaan in la wada yeesho kadib hardan siyaasadeed oo sababay in xildhibaanada ka soo jeeda gobolkan qaarkood aan waxba laga weydiin dhismaha doorashooyinka iyo wadahadalka galmudug waxaa jira dad kale oo qaba in sidii madaxweyne kaariyo u maareeyay arrintii ahlusunna waljamaaca ee adeegsiga awoodda iyo luuqadda ciidanka ay ahayd midaan ka turjumayn yabyabka iyo dhismaha galmudug la wada leeyahay marna ma dhiirigelinayno mana dhiirigelinin in dhiig daato dad islaayaan oo dad isdilo laakiin suurtagal maaha jabhad iyo dawlad islama noolaan karaan jabhadu kumay dhex noolaan karto hubaysani dawlad dhexdeed kuma noolaan karto magaaladan caasimadda ah ee Dhuusamareeb suurtagal maaha inay jabhad hubaysan joogto nidaam xukum oo la soo doortay oo madaxweyne iyo baarlamaan iyo maamulan uu dhinac ka shaqeeyo horta islamay socon karin dawladnimaduna waxa weeyaan waa inay go'aan qaadato ay wax ku xalinayso silman haday yani xagga si nabadgelyo ah haday ku xalin karto inay ku xaliso waxaan u maleynayaa ahlu sunna waxa la siiyay time aad u dheer in la hadlo in la wada fariisto in la soo shaqeeyo ayaga laftirkooduna 10 sano wax ka badan ayay deegaankan joogeen oo ay maartay runtii si fiican u xididaysteen marka hadda inay xabad soo gaarto oo xabad ay dhacdana ma u maleynayo go'aan ay xukuumaddu gaartay inay xabad ku dhacday ama si kadis ah ku dhacdo ama dhinaca kale to aan la ii sheegay inay xabaddu ayagu bilaabeen xaggooda ha ka timaado laakiin xabaddu ma inay ahayn khiyaar la doortay oo loogu talagalay in xataa lagu xalliyo mashaakilkii laakiin duruuf timid ay ahayd sida markii dee xabaddii dhacday oo dagaalkii dhacay loo xalliyey oo loola falgalana si aad u qurux badan ay ahayd sidii ay tahayba madaxweyne xaaf xilkii waa wareejiyey ha yeeshee dhinaca ahlu sunna waljamaaca oo ay madaxweyne kaariye ka wada hadleen ka qaybgalka caleemasaarka waxaa muuqata inaan cidina ku mateli doonin caleemasaarka madaxweynaha sida ay qabaan jilib weynta xisbiyada mucaaradku kaalinta xukuumadda nabad iyo nolol ee doorashooyinkii galmudug iyo koonfur galbeed iyo qorshaha iyo qabanqaabada doorashada hirshabeelle waxaa muuqata in saddexdaas dawlad goboleed ay si buuxda u galeen gacanta xukuumadda dhexe haddaba haddii dawlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug ay xoog iyo xalaaltii ay tahaba galeen gacanta xukuumadda dhexe jubbaland iyo puntlandna aanay dabka kala qaadan dawladda federaalka sidee suurtagal u tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan suurtagalse ma tahay in kala qaybsanaanta siyaasadeed u sahasho nabad iyo nolol inay samayso gebidhaclayn sababta kala dhantaal ku dhaca dhaqanka dawladeed ee soo taxnaa 20 sano kaas oo ah in awoodda iyo xilka waddanka si nabad ah la isugu wareejiyo